Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena xiga ee janaalkeena degdeg official. Fadlan hadaa janaalka ku cusub tahay subscribe, share, like, share, comment. Muuqaalkeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa wadamada leh lahaanshiyaha hay-adaha sirdoonka ugu xooga badan ee dunida. 10 wadan ee ugu xooga badan ee dunida dhanka sirdoonka markii laga hadlo ayaan kusoo qaadan doonaa muuqaalkeena. Wakaaladda sirdoonka Pakistan ISI waxaa la aasaasay 1948. Muhiimadda ugu weyn ee wakaaladda sirdoonka Pakistan waa macluumaad ku saabsan dalka ay deriska yihiin ee Hindiya oo dagaallo aad u qaraareen dhexmareen muddo 3 in ka badan. Nambarka 2 waxaa soo galay CIA, wakaaladda sirdoonka dhexe ee USA Mareykanka, Central Intelligence Agency. Waa sirdoonka ugu caansan uguna xooggan, waxaana u shaqeeya ilaa iyo 20,000 oo shaqaale ay ku leedahay dunida daafaheeda. Waxay sidoo kale leedahay 1,000 qof oo si laba waji ah ula shaqeeya, kuwaasoo mukhaabaraad dowlado kale ula shaqeeya si hoosna ula shaqagala Central Intelligence Agency loo soo gaabiyo CIA, wakaaladda sirdoonka dhexe ee USA ama Mareykanka. Nambarka 3 waxaa soo galay MI6, Military Intelligence Section 6, wakaaladda sirdoonka dowladda Ingiriiska. Nambarka 4 FSS, Howlaha Amniga Federaalka Ruushka, waa hay-ad la aasaasay xilligii Suufiyadda waxayna bedeshay hay-adda Guddiga Ammaanka Guud ee Suufiyaadka KGB. Nambarka 5 waa USAID-ka Israa'iil, nidaamka Sahyooniga xoogga ku haysta Falastiin, waa mid ka mid ah hay-adaha sirdoonka kuwa ugu caansan. Nambarka 6 waxaa ku jira Darabka Baaritaanka iyo Dabagalka RAW, waa hay-adda sirdoonka adduunka ugu dadka badan. Hay-adda labaad ayay noqonaysaa, waa hay-adda sirdoonka adduunka ugu dadka badan, tan labaad weeye, waxaana la aasaasay 1969. Nambarka 7 Istikhbaaraadka Sirta ee Australia, markii la soo gaabiyana loo yaqaano ASIS, Australian Secret Intelligence Service. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa magaalada Canberra. Nambarka 8 waa BND, hay-adda mukhaabaraadka dalka Jarmalka. BND waxay mas'uul ka tahay maslaxda Jarmalka dalkaasi, badanaa waxayna diiradda saartaa ragga daroogada ka ganacsada. Nambarka 9 waa DGSE, Idaaradda Guud ee Amniga Dibadda dalka Faransiiska. Waxay isla shaqeeyaan hay-adda Faransiiska ee Amniga Guud, sidoo kale waxayna iska kaashadaan ilaalinta masaalixda dalka Faransiiska, midda gudaha iyo dibaddaba. Dalka ugu dambeeya, dalka 10aad, waa Wasaaradda Amniga Dowladda Shiinaha oo loo soo gaabiyo MSS. Waa hay-adda mukhaabaraadka waddanka Shiinaha oo ah waddanka adduunka ugu dadka badan. Muhiimadda ugu weyn ee hay-addaasi qabato waa ka hortagga dadka basaaska u ah dowladda Mareykanka iyo sidoo kale dabagalka mucaaradka xisbiga shuuciga ee dalka Shiinaha ka taliya.